السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وأنا سلامي أخيارتا قيمها إيا قايها له walaaleyga qaaliga waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa walaashii hidaaya xasan waxay idin wadaa maanta hidaaya xasan barnaamij aad u wanaagsan like share comment intaba ha ka bakheelin walaaleyga qaaliga janalkeena waa wada leenahay janalka insha allahu tacaala maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo waa dadka qaar maalin u tahay aniga habeen ay tahay waxaan rabaa arrin muhiim maasha allah inaan ka hadlo walaaleyga qaaliga ah gabdho iyo wiilal intaba fahanteen maanta walaashii waxaa idin wadaa arrin muhiim ah arrinkaasoo ah walaalahayga qaaliga waxaan barihan diiradda ay saarneeda company forever maasha allah wax kale ma ka hadlin barihan waayo waxaa la dhahay dantiis mooga dabaal waaye aa la dhahay dantiis moogana marduuga horteedoo leedaha la dhahay fahanteen marka saas darteeda aniga maadaama ay companyga dan muhiim ay ku jirto aniga kaliga iguma jirto qof allaala qofkii shaqo doon ah ee maxaa la dhahay shaqo raadis ah ee dan muhiim u tahay ma fahanteen marka waxaan rabaa walaaleyga qaaliga dhammaanteen inaan ka wada faa'iidaysano horta been idinma sheegayo aniga lacag maasha allah uu ka helaya qofka ka shaqo bilaabo xooggiisa uun qofku ku shaqaysanaa ma aha lacag bilaash ah yaan leedin horta lacag bilaash la qaataa lacag bilaash ma jirto adduunka korkiisana kama jirto lacag bilaash ah wax walba oo adiga aad helayso waa inaad dhididka saas usoo dhahdid waxaad dhididkaaga saas u dhin helaysid horta kow marka ugu horeyso waxaa waaye inaa maxaa la dhahaye companyga aad isdiiwaan gelisid markaa isdiiwaan geliso waxaa sameynaysaa sorry markaa isdiiwaan gelisid iibaa sameynaysaa alaab toosiisa la dhahaa iibsanaysaa oo ay shay leh waxa ay haayaan waa natural wax natural ay haayaan marka waxaa sameynaysaa maadaama alaabihii wax loo wada baahan yahay ay yihiin alaabahaas waxaa hartaa ka adeeganaysa waa adiga suuq intaa la eg waaye onlineka markaa gashid hadda adaaba argagaxaystaan ku dhaha wax alaaba markaa aragtid waxaa dhahaysaa waxaa intay ku qarsanayna leedaha markaa gashid forever living product bisaa qoraysaa googlekaa gelaysaa waxay ahaayeen markaa aragtid adduunya kaa qarsanayda horta meeshaas ku arkay kow ma fahanteen marka walaaleyga qaaliga waxaan leeyahay ka faa'iidaysta rag iyo dumarba shaqaa taalo lacagaa taalo qofkii waxaan ku dhaha howlkar ah waxaan ku dhahay qalbigiis toojinaayo aqligiis toojinaayo rabo inuu lacag soo saaro rabo inuu meel iska soo saaro companyga forever living product lacagaa taalo ka faa'iidaysta walaaleyga qaaliga qofkii rabo inuu isdiiwaan geliyo riyadiisna oo rumeeyo rabo qofkaa wuu ila soo xiriiri karaa linkiga hoos soo dhigaya qaybta commentiga ha soo raaca qofkaas whatsappka ayala soo xiriiro insha allahu tacaala aniga uga dhacayo sida uu lacag ku shaqaysan karo sida onlineka uga shaqaysan karo sida oo maxaa la dhahay alaabaha uu iib geyn karo sida uu alaabaha u iibsan karo africa meel kasta adduunka dacaladiisa meel walba aad joogto forever alaabteeda wada helaysaa ma fahanteen walaaleyga qaaliga ani waxaan jeclahay inaan maxaa la dhahay horumar aan wada gaarno mu aha inaan kaligay aniga aan gaaro aan jeclahay waxaa waaye dadka dhan waxaan jeclahay inaa qof walba hamigeeda u ka rumeeyo laakiin haddaa maalin walba waxba niyadda wax walba aad ku haysid mar walba aan wax iska haminaysid laakiin hamigaas aad ku dhaqaaqaynin dhibaa kaaga imaanayo maxaa la weligaa heer ma gaaraysid weligaa cabsi walwalaa ku noolaanaysaa amaa khasaarta amaa ka dhacda amaa yeeshaa horta companyga laba jeer ma khasaaraysid laba jeero maba khasaaraysid taas taa aan ku dhahayo laba jeer ma khasaaraysid waxaa waaye lacagtaada alaabaa ku iibsanaysaa alaabta aad ku iibsatay faa'iida raadaysaa taa alaabtaa sii gadaysaa alaabta markaa sii gado maxaan ku irahdaa faa'iida kuu saaran sooma ilaan waxaa kusoo gada adaa yaqaan waxaa saartan adaa yaqaano waa qof faa'iida raadaysaa taa maxaa kuusoo haray calaa qof companyga markaa qofkaa kusoo darto 125 uu company ku siinayo lacagta qofkaas uu iibsado 125 aa leedahay maadaama juhdi aad geliso qofka aad soo rajays garaysay companyga aad bartay dhididkaagaa leedahay ma fahanteen qofkii $100 ayaad ku qaadanaysaa qofka $100 ku qaadanaya markii lagu leeyahay no inay ribo tahay ama ay qasab tahay waxaa waaye 125 lacagta leedahay waaye oo qofka ku adeegto ma fahanteen marka walaalahayga qaaliga mar walba waxaan jeclahay inaan wada shaqaysano inaan heer wada gaarno marka walaalahayga qaaliga ka faa'iidaysta fursad waaye jaanis waaye jaaniska idin dhaafin maalinta ku dhaaftaba
beri ma soo noqonayso bisha ku dhaaftana beri ma soo noqonayso sanadka ku dhaafana ma soo noqonaa waa cimri kaa hare ma fahanteen marka walaalahayga qaaliga aan ka wada faa'iidaysano forever living product aan ka faa'iidaysano aan lacag ka shaqaysano marka walaalahayga qaaliga mar walba waxaan jeclahay inaan wixii ii shaqeeyey ama jaanisa aan idinla wadaago sida aniga maxaa dhahay uga faa'iido idinkan uga faa'iidinaan jeclahay marka qofkii rabo inuu isdiiwaan geliyo qofkii rabo inuu maxaa dhahay kambanigaas ka shaqo bilaabo linkiga soo raaco waa qofkii lacag gacanta ku haysto rabo inuu maanta soo shaqo tago rabo inuu forever shaqo ka bilaabo rabo inuu horumar sameeyo insha allahu tacaalana waxaa hubaal ah inuu guuleysan doono qofka geesiga jecel ganacsigana yaqaano ma fahanteen laakiin qofaan ganacsiba aqaanin dhinacoo ka mara aqaanin maxaa dhahay welwelaayo ama khasaarta ama yeesha xoolaha gacanta ku haysata lacagtaada alaabaad ku gadanaysaa alaabta aad ku gadatan waa iib geynaysaa calaa qof dadka kusoo raaco ee ganacsigaaga ka helo ama alaabti ka helo ee rabo inuu iibsado iyadoo jimlo ah waa diiwaan gelinaysaa 125 leedahay waana runtay ilaah baa ila og ima dhaarsanaysin marka walaalahayga qaaliga waxaad leeyahay soo dhawaada ganacsi ayaan kusoo dhaweynayaa qalbi furan iyo saafiya weji farxad ayaan kusoo dhaweynaya walaalahayga qaaliga linkiga soo raaca faahfaahin dheeri qofkii rabo linkiga soo raaco insha allahu tacaala anigana ugu soo jawaabi doonaa insha allah wax walbo oo isoo weydiisina si daacadnimo ah oo ilaahay la ogyahay ayaan u idinkaga jawaabaya insha allahu tacaala waxaan leeyahay walaalahayga qaaliga mar walbo waxaan jeclahay horumarkana dee waa wada samayn karnaa kaligay ma ahan ummadda dhanaa samayn karta horumarka taada kaleete alaabo taya lahay meesha yaalo oo natural ah waxaan ku dhahay jirkeena iyo timaheena waxaa dilay kiimiko alaabtooda kiimika ma lahan waxaan ku dhahay xagga caafimaadka maasha allah alaabaan kala dhicin qofkii raba faahfaahin dheeraad ah wuu ila soo xiriiri karaa maasha allah waan uga soo jawaabaya hadduu ilaahayga awooda badan ka raali noqdo mar walbana waxaan jeclahay inaan horumar wada gaarno oo lacag shaqaysano oo maxaa la dhahaye gacantan ku ilbaxno oo dad aan u shaqaynin oo nafteena u shaqaysano insha allah marka walaalahayga qaaliga soo dhawaada markaste kuna soo dhawaada ganacsigeena waxaan leeyahay qofkii rabo oo diyaar ah wixiisna u diyaarsan yihiin linkiga ha soo raaco qofkii rabo inuu wax badan ka ogaado oo jecel in oo maxaa la dhahaye jecel inuu wax badan ka ogaado wuu ila soo xiriiri karaa qofkaas isagana insha allah waxaan maxaa la dhihi jiray jecelahay inaan wax walba isla ogaano marka aniga horta waan arkay inay faa'iido leedahay dadka dhan inay ila arkaan rabaa dad badanna way ogyihiin dad badan oo ogaa jiraan marka walaalahayga qaaliga soo dhawaada shaqadana kusoo dhawaada forever lacagaa taalo been ma ahan waa xaqiiqa cad waaye qofkii shaqaysta unbaanu lacag helo qof laakiin fadhiyo ee gurigiisa fadhiyo ilbaabka ma soo garaacayso laakiin lacagta amaanta hesho haddaad suuqa inta la aadi cuntid oo ganacsi aada ku bilaabin way soo dhammaanaysaa gurigana kama soo dhalanaysa laakiin haddaad shaqo ku bilaawdo shilinka heshid ganacsiga waa loo duceeyey maasha allah waana wada ognahay rasuulkeena suuban salawaatullahi caleyga u duceeyey sala allahu caleyhi wasalam saliya nabigeena suuban marka walaalahayga qaaliga waxaad leeyahay fursadda ha iska dayacina jaaniskana ha iska dayacina mar walba waxaan jecelahay inaan wixii wanaag idinla wadaago channelkeygana waa lagu yaqaanaa like iyo commentiga share baryahan waxaa la dhahoyaa oo la isla dhex yaacayaa macnaha loofka iyo ubaxyada la firdhinaayo fiyuuska lala haraayo fiyuuska ilaa igala haro marabe walaalahayga qaaliga qofka wax soo weydiinaya commentiga la igu soo qoro laakiin ubaxyada iyo waxaa naga daaya saasaa la dhahay marka waxaan idin leeyahay walaalahayga qaaliga kusoo dhawaada shaqada waxaa idinkugu yeeraya waxaa waaye shaqo qof walba waxaan leeyahay karti iska raadi haddaa karti laheedna sii laba jibaaraan leeyahay anigana halkaana kasoo sheegi doonaa wixii aan soo arko iyo wixii aan maxaa la dhahaye ii shaqeeye waxaasoo dhan ayaa idinla soo wadaagaya walaalahayga qaaliga mar walbana waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada iyo qalbi nadiif ah maxaan sugaynahay inaan gacmaha isqabsano shaqaysano tiim isku xiran noqono taasaan waxaan ka rajeynaya ilaahay inuu noo suurtageliyo insha allahu tacaala haddana tiim badanaa haysanaa oo isku xiranaa nahay maasha allah oo wada shaqaysto idinkane taasaa idinka rajeynaya insha allah
waan idin salaamaya walaalahayga qaaliga waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu